u dhalatay Bangladesh oo haysata dhalashada Ingiriiska ayaa ku qasbanaatay inay dagaal ku wajahdo qoyskeeda kadib markii si aan lagu farxin uga falceliyeen uur ay u yeelatay nin madow ah. Salma waxay iyadoo careysan ka carartay guriga hooyadeed kadibna waxay dadaal u gashay inay nolosheeda dabarto, laakiin hadda iyadoo 22 jir ah 2 bilood oo uurna leh ayay hoy la'aan tahay. Albaabka guriga qoyskeeda wuu ka xiran yahay, reerkooduna sidaas ayayba ku deeriyeen. waxaas oo dhan sababtooda waa in iyadoo reer Bangladesh ah ayna ku adkeysanayso inay dhasho canug uu aabbe u yahay nin madow ah. dhaqan ahaan bulshadeena dumarka ee reer Bangladesh ilmo kuma dhalaan wax guur ka baxsan, iskaba daayay inay guursadaan dad jinsiyado kale ah ama ay yeeshaan caruur midab madow leh. habaryarteed ayaa subax walba isku dayeysay inay ka dhaadhiciso sidii ay mar labaad ilmaha isaga soo xaaqi lahayd maadaama markii koowaad ay uurka yeelatay iska soo xaaqday. balse markaani Salmo waa 18 jir. waxaan diyaar u ahay inaan sameeyo wax kasta oo aan cunugteeda ku badbaadin karo. taasi micnaheedu waa inaan ka sabro qoyskayga, inaan ka sabro xirfadayda iyo inaan ka sabro wax walba oo aan haystay, laakiin waxaan dareemay in aysan jirin waddo kale oo ii furan, ayay tidhi Salma. ka hor inta aysan Salma ka dhaqaaqin guriga reerkeeda waxay aragtay hooyadeed oo ilanta indhaheeda ka daadanaysa ay qoysay sabaayad ay qayb ka cuntay. waan ogahay inay jecleed in cunugaani uu noqdo mid Bengali ah, markaasi waxay wici lahayd qoyska ninka aan jeclahay, waxay qorsheyn lahayd arooska, way sharciyeen lahayd, wax walbana dhexda ayay u xidhan lahayd. balse dhibka jira ayaa ah canuga aan caloosha ku wado aabihiisa waa nin madow ah. inta aysan xubno kale oo qaraabadeeda ah culayska soo saarin, Salma waxay isaga soo carartay guriga reerkeeda iyadoo gacanta ku soo qabsatay taleefon ay lahayd oo noociisu ahaa Nokia 3210. ma aysan doonayn inay ilmaha iska soo xaaqdo, suuragalna uma ahayn inay la sii joogto qoys aan ku taageersanayn inay canugeeda dhasho. sheekada jacayl ee Salma waxay ahayd mid cajiib ah. wiilka wuxuu deganaa guriga ku xiga albaabkooda, iyada ayaana atiriishada ahayd oo isxakameyn weysay islamarkaana jeclaatay marka horeba. laakiin filimada Bollywoodka lagama yaqaano atoore madow ah. inkastoo bulshooyinka degan koonfurta qaaradda Aasiya ay qarniyo badan dhibaato ka soo mareen cunsuriyad lagu sameynayay, naceebka midabka madow iyo fikirka lagu diidan yahay dadka madowga ah wuxuu ku badan yahay bulshooyinka gobolkaasi ku dhaqan. ma jirin hal habar yar oo Salma markii ay yareed ku dhahday dadka madowga ah way xun yihiin, balse naceebka madowga wuxuu leeyahay hab kale oo loo maro iyo sheekooyin caruurta lagu abaabiyo ilaa iyo marka ay aad u da'yar yihiin, sida in lagu dhaho ha u bixin qoraxda banaanka haddii kale waad madoowaanaysaa, ama gabar midabkeeda uusan madow ahin ayaa durbaba la guursadaa. Salma hooyadeed waxay fikirka madow naceebka ah kasoo bilowday waagii ay Bangladesh ku nooleed xilligii gumaysiga Ingiriiska uu halkaasi ka jiray. xitaa waxay aad u necbanaan jirtay dhaqanka ragga madowga ah oo ay ka aaminsanayd mid xun. Salma oo 16 jir ayay ku dhihi jirtay nimanka madowga ujeedkooda waa inay uur ku yeelaan oo keliya. markii ay ogaatay in gabadheeda ay jeclaatay wiil dariska ah waxay ku tidhi nin madow ah qiimo fiican agtiisa kama yeelanaysid. hadalka noocaasi ah cid tidhi ma jirin markii wiilasha qoyska 3 ka mid ah ay guursadeen 3 gabdhood oo caddaan ah. Salma waalidiinteeda waxay la dhantageen 30 sano ka hor kadib markii ay ka soo qaxeen waddanka Bangladesh, laakiin maalin maalmaha ka mid ah furihii Salma ay haysatay ayaa ku shaqeyn waaya albaabka hore ee gurigooda intii iyada iyo hooyadeed ay ku maqnaayeen safar xilliga fasaxa ah. aabaheed ayaa bedelay qufulkii, halkaasi ayayna Salma iyo hooyadeed ku noqdeen hooy la'aan. hooyadeed waxay ku qasbanaatay inay kaligeed korsato 2 caruur ah. xilligaasi wixii ka dambeeyey bulshadii ay kasoo jeeda ayaa ku aflagaadeyn jirtay inay garoob tahay, laakiin sidoo kale dadka aan reer Bangladesh ka ahayn xitaa waxay ka ahayd ajnabi. cabsida ugu weyn ee ay qabtay waxay ahayd in aniga igu dhacaan wixii iyada ku dhacay, ayay tiri Salma. haddana isla anigii ayaa ka hor imaaday oo dhaqankaygii diiday, xirfadaydii iyo wax kastana u burburiyey nin madow ah oo ay ka aaminsanayd inuu iga rabo raaxo oo keliya, guurkaygana uu doonaynin, haddana iga dhalay gabar oo hooyadii aaminsan tahay inaan nolosheeda kaafin karin. hal isbuuc kadib markii ay canugteeda dhashay, Salma waxay is aragtay iyadoo hortaagan guriga hooyadeed mar kale. waxay arkaysay nalalka loogu talay dabaaldega ciidda masiixiyiinta oo daaqada lagu sharxay. waxaan u soo carfay hilibka digaaga oo guriga laga kariyey. iyadoo cabsi dareemaysa ayay canuga si fiican marada uga xijisatay, albaabka ayayna garaacday. durbadiiba waxaa ka furay walaalkeed. canuga ay gacmaha ku wada ayuu si xun u qooraansaday, horay ayayna usii gudubtay. talo sidee hooyadeed ugu falcelin doontaa canugan halka 7 jira? waxay fariisatay miiska cashada. canugii waxay seexisay qol kale. hooyadeed waxay iska ilaalinaysay inay indhaheeda iyo indhaha gabadheeda isku dhacaan. markii
markii ay hilibka digaaga u keenaysay. isla markiiba oohinta canugii yaraa ayaa ka yeertay qolkii ku xigay. Salma waxay dareentay inayba tahay fursad fiican oo ay marmarsiyo ka dhigato, laakiin hooyadeed ayaa celisay markii ay u dhaqaaqday. aniga ayaa u tagaya waxyar kadib oohintii way istaagtay. hooyadeed ayaa canugtii ayayda u ahayd markii ugu horeysay soo qabatay. ilin ayaa kasoo hoobatay Salma indhaheeda. hooyadeed inkastoo ay fikir xun ka aaminsaneyd ninka gabadheeda ee ilmaha u dhashay, haddana weli way jecleed. taasi waxay xaqiijisay aqbalidda codsigii ay ku rabtay inay mar kale guriga qoyskeeda kusoo laabato, caawinaadna ku hesho. maalmo gudahoodba hooyadeed waxay canugtii yareed marsiisay dhammaan dhaqamada islaamiga ah, wayna u ducaysay gabadheeda, ayay tiri Salma. sidaas oo ay tahay kama aysan sheekaysanin waxyaabihii dhacay bilihii ay Salma ka maqneyd guriga. 5 isbuuc kadib musiibo ayaa dhacday. Salma waxay ogaatay in gacaliyaheeda uu muddadii ay wada socdeen oo dhan la socday haweeney kale, iyadoona ay cunug kale u dhashay. waxaa rumowday cabsidii ay hooyadeed weligeedba ka qabtay ragga madowga ah. wax walbana waxay noqdeen sidii ay ka digaysay. Salma waxaa ka soo haray aamusnaan, caro iyo nolol qalafsan. walwal aad u badan ayaa soo wajahay. hooyadii waxaa ku soo baxday howl kale oo ah inay 2 canug xanaanayso. aniga iyo gabadheeda labadeenaba hurdada ayay naga kicin jirtay, laakiin dadka dhan ayay ka qarin jirtay xaaladda aan ku sugannahay. Salma waxay nolosheeda soo hagaagtay markii ay qortay gabay, waxbarashadana dib ay ugu noqotay. jaamacad ayay ka qalin jebisay 7 bilood kadib markii ay canugteeda dhashay. Salma hooyadeed markasta way ka soo horjeeday go'aanka ay Salma ka qaadanayso nolosheeda, gaar ahaan markii ay dib ugu laabatay gacaliyaheedii hore, meel gaar ahna la degtay. tallaabadaasi waxay qaaday isla markii ay jaamacadda dhammaysay. dhowrkii sano ee xigtay nolosha Salma isbedelo kale oo lama filaan ah ayaa ku dhacay. canug kale ayay u dhashay isla ninkii hore, kaasoo markii dambena toos ugu tagay, dib aana ugu soo laaban. waxay bilowday inay nolosheeda dib ula dhisato qoyskeeda iyo qaraabadeeda, kuwaasoo markii hore caruurteeda ku caan jiray. xitaa mid ka mid ah xubnaha qoyska ayaa ka raaligelisay inay qayb ka ahayd ololihii soo xaaqista ilmaha. laakiin weli waxaa meesha ka bixin naceybka loo muujiyo madowga oo si toos ah u saameynaya caruurteeda. way iska caddeed inuu ka tegi doono, uu soo afjari doono wadada qaldaneed, ayay tiri hooyadeed. dadka qaar ayay u sheegi jirtay in ilmaheeda ay ugu yaraan iyada shabahaan. Salma waxay mar walba isku dayi jirtay inay u sharaxdo sida saameynta xun ugu reebayaan hadalladaasi lagu dhahayo, laakiin intii ay Salma caruurteeda sii weynaanayeen waxay la qabsatay hadallada ay hooyadeed uga muujinaysay walaaca. ilaa iyo hadda Salma mararka qaar ayay hooyadeed isku buuqaan, iyadoo ka falcelinaysa sida looga colaadiyey go'aankii ay ku dooratay ninkii madowga ahaa. maalin maalmaha ka mid ah ayay tiri Salma, waxaad sidaasi oo dhan u samaynayso waa inuu midabkiisa madow ahaa, soo ma ahan? maya, ayay tiri hooyadeed oo isdifaacayso. ma ahan inuu madow ahaa, balse sababta waa inuusan muslim ahayn, nama uusan fahmi karin. Salma iyadoo argagaxsan ayay hooyadeed eegtay. waxayna ahayd markii ugu horeysay ay hooyadeed muujiso muhiimadda dhinaca diinta. waxay niyadda iska weydiisay sababta waxba looga dhihi waayey 3 haweenka ah ee aan muslimka ahayn ee lagu soo dhaweeyey qoyska. laakiin waxay u qaadatay in taasi ay tahay sida keliya ee hooyadeed ku muujinaysay fikirkeeda madow naceebka ah, iyadoo aan si toos ah u qiranaynin. warbixintani waxaa qortay BBC-da qaybteeda sheekooyinka. sawirada farshaxanka waxaa samaysay Tanzina Barisa Kabir. anigu waa idiin soo turjumay. sheekadani oo qoraalka Ingiliishka ah waxaan soo dhigay qaybta hoose. sidoo kale aad baad ugu mahadsan tahay sida wacan aad noogu xiran tahay. inta aan ku wada kulmi doono sheekadani mid la mid ah, sidaas iyo nabadgelyo.